tixdan gabayga ah oo magaceedu yahay sixi aqoon waayey waxay ka hadlaysaa dhaqanka marka waa dhaqanka soo galootiga iyo waxyaabaan garan waayey 9 qodob baan markaa ku soo ururiyay 9 qodob ayaan markaa halkan aan maanta idinku soo gudbinayaa in aanu sixi garan waayey ninkii saxayay soo garanayana waan ka sugaynaa inuu inoo soo sheego saaleyda gabay waayadeer saabka kuma hayne sadrigayga waa taan ka jaray sadarradiisii iyo nin waliba kolkuu saanyaday yaan ka saaqiday waxay saaqi muujiyey xaluu saarki ii yimi adduunyada sirteediiyo kolkii lay sawiray xaalka sahwiyo calooliyo waayaan suurayoo baxay waayadanba dhaqamaa socda soo galootiye hebel 9 qodob in dhammaan wada saluugayo yaan sabab u baadhbaadhayo saa'ilkeed ahay hadhow biisaniyo kii hurdada seexday waa hore ee rag ninkii wax igu seeganow waa ku sugaya saadamaanso saadada murtida midhaha suugaanta waxa laga sameeyaa dhacdada socoto geelo sumad bay u tahay baadisooc lagu sargooyay sumdkii hadii aan habdhaca la isku wada seemin amaad seera goysa xarfaha saamigii dhimi badda siman mid aan kala saxayn siidka iyo saadka iyo wax sitaad gabay ka dhigay sixi aqoon waay dhaqan saxa sagsaag iyo dhagxumo lagu sawruugaynin Soomaali baaliye sinjiga sawracay yahay dhalinyaradu way seegan tahay sabankan joogtaaye salabiga sidiisoo kale sixi la yeeleena ahay suruqan TV iyo saha xumaantooda wax kasto sameeyaba kufra loo sadiqaya inamadan surweelkay siteen dhaafay sinahood arbahana saturay cawraduna saamax la ahaantay dhinacyada sakuume timaha dhorka sare saaray saamaha kuwa togob la tumay socodka moodayso dejiskaas juuraha leh baan sixi aqoon waay sooyaalka mahamaha hay dhigatay Soomaali inaan wax xabaal lagu siniyo sawjad noqotay wax kale oo samaanteedu tahay lagu sifeyn waay waxa dumarka soo saaray ee loo saldhigay waay ee suuqa lala taagan yaan sixi aqoon waay dadan soof badhaqan xoolo nool sawracna u yeelan oo sidii geel iyo lo'diya ariba suuraynin oo sarar lagliya caana iyo sixinba doonay sida igu suuroobi baan sixi aqoon waay saqda dhexe hadaad soo baxdo oo samada aad eegto siraadkan arka waa xidigo sare ka muuqdaay cirka sacaha lagu sheegayaan sixi aqoon waay diimaha islaamka ka sax oo saxiix ka ah sunnada rasuulka iyo sharciga suubanuhu jeexay sallallahu ala nabiyina sayyidina muhammad iyada ahkaam ugu sagnoo saabidoonigi mabda gal samaystaan lahayn sal iyo raatoon oo sancad laga keenay oo lagu sunoobayo iyo waxa dastuur nagu saliday saxi aqoon waay hadii magacan Soomaaliyeed lagu saliiliyooday oo qabiilba meel calan surtay oo seertay gobolkiisa sayma kala dhex yaalin iyaga la isna wada seegay cadow saaxiib yihiin siriq qoolayo ninkii samaanteeda jecel saariq laga yeelay halka ay u socotaan anigu sixi aqoon waay tawxiidka ruuxii ku sugan sadarka iimaanka ee aan salaadiye ka tagin faralkii saaraab oo aan kufriga sadig la noqon ama saaxiib oo seefta loo shado sumacya loo haysto safkolku u soo galo jihaad saajac diriraayo ninka sadarka gaalada mara ee saaciidada siiya ee lagu sifeeyaan islaam sixi aqoon waay garta waxa la sooraa kolkaad saafta dabadeed sulxuna dan weeyiyo wixii la isku saamaxay timaha isku soohdeen dadkii way suran yihiin cadaalad sursuur bay gashay oo sayma lagu od dar alliya wax loo suubiyana waa la saahiday niman sacabka laaluush ku sidan dawma saaciday ee garta waxa la siiyaa ninkay soor ka helayaane wax sabool garsoorkii ka dhigay sixi aqoon waay afarta sifeeyay hadana subac yar baan suudigana baaraha dhacay ee lagu sanoolmaayo hadaad saalixiin wadatihiin laguma saareena daruuraha biyaha saydhaya yeedan simiilay sarcaba ka soo bixi lahaa aradkan sanyooni waa lagu samaan la nimcada saadir mahadii sayyi'ada xumaantii dulmigay sababsanaysaa isa saamaxo toobad sax saadir la laabta